magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ku soo badanaya dhalinyarada isticmaala barnaamijka loo yaqaan One Expert oo ah barnaamij online ah oo ay dhalinyaradu nasiibkooda ku tijaabinayaan iyagoona khasaaro iyo faa'iido kala kulma. One Expert gobolada dalkeena oo dhan ayay dhalinyaradu ka ciyaaraan balse Kismaayo ayaa ahayd maalmihii u dambeeyay mid ay ku soo badanayeen dhalinyarada isticmaala barnaamijka nasiibka ah. goobaha la isugu yimaado ee Kismaayo ayaa waxa ku arkaysa dhalinyaro iyagu ku mashquulsan ciyaarta One Expert. Haddaba TV-ga Jubbaland ayaa qaar ka mid ah dhalinta ciyaarta barnaamijkan loo yaqaan One Expert sharaxaya waxa uu yahay iyo waxyaabaha ay ka faa'iidaan. iyagoo qaarkood inoo sheegay inay ku qaliftay duruufta taasina ay u tahay shaqo abuur sida ay tilmaameen. oo dhalinyarada macnaha waxa ku qaliftay shaqo la'aan. magaalada shaqo ma lahan. marka dhalinyarada waxay doorbideen inay macnaha One Expert ay galaan ay ka soo saaraan dhaqaalo. dhalinyaro badan macnaha waxay ku jiraan guryo oo kira ah. marka kira badan ay isaga bixiyaan. One Expert waan isticmaalaa waxay leedahay faa'iidooyin yar laakiin boqolkiiba boqol waxa badan khasaaraheeda. maxaa yeelay waxaad arkaysaa qof dhan ama fiiga iskuulka ama salariga guriga ama noloshu isaga dabari lahaa uu doonayo inuu ku khamaaro One Expert uu saarto in badanna laga cunay. maalin weyn muuqaal xitaa waxaan daawaday qof nool oo ku dhintay barnaamijkan One Expert-ka ah. dhimashada lacag la isku qabsado dhaxmar labadooda waan media ka arkay One Expert ah. wallahi waxay ila tahay un shaqo la'aanta gobolka ka jirta qofka fursado kale oo shaqo uunan helaynin haddii uu heli karo fursad kale uu ku shaqeeyo ma awoodi lahayn inuu khamaarkan ama lacag uu dhigto ama uu waqti geliyo. boqolkiiba boqol application-kan cidda soo sameysay boqolkiiba boqol way ka faa'iiday sida ay rabteen way ugu tala gashay laakiin Soomaalidaanan aad u fahamsaneen waxaan inuu yahay wax waqti badan lagu dhuminayo khasaaro badan uu leeyahay dhimasho badan uu keeni karo iyo kala fogaasho. marka qolada soo sameysay aad bay ugu faa'iiday boqolkiiba boqol. qaarkood dhalinyarada ayaa qaba fikrad ah in ay khasaaro kala kulmaan barnaamijkan loo yaqaan One Expert. ciyaartan ayaa ah mid dhalintu inta badan saameyn ku yeelato lacagahooda oo luma. taasina waa nasiib daro ay mararka qaar ku hungoobaan iyagoo filayay inay helaan wax ka badan wixii ay raadinayeen. boqolkiiba boqol waa One Expert waa khasaaro faa'iido ma leh. reerar baa ku dumay waxaan ayaan dhaweyd gartooda galay nin saaxiibkay oo hadda aan rabin magaciisa in aan sheego $150 gabadha telefonkeeda ku jirtay intuu la baxay iyadoo hurdo ayuu telefoon ku ciyaaray $8 bas oo badbaaday. marka waad garan kartaa tirada u dhaxaysa $150 iyo $8 biilkii reerka waa. marka biilkii reerka dhan One Expert cunta. One Expert waa mucjiso soo kordhay gaar ahaan dhalinyarada kuwa ahlu aqliga aan ahayn waliba. waxaan dadka dhalinyarada u sheegayaa gaar ahaan dhalinyarada reer Jubbaland guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan dhalinyarada reer Jubbaland waxaan u sheegayaa in One Expert ku daalin. maxaa yeelay waxa aad helayso waa maalin in labo waa khamaar wax la tuurayo waa waxa isku aaday lagu leeyahay waxa isku aaday waxaas waa wax nin uu isku aadinayo. marka ninaa soo shaqo tagay biilkaaga ilmuhu qaadana. marka aniga waxaan u arkaa boqolkiiba 90 khasaaro. in barnaamijkaas wacyigelin badan laga sameeyo si looga hortago maadaama wixii khamaar ay yihiin sharci islaam ahaan iyo bulsho ahaan aysan ku habooneen. laakiin anigu fikirkayga waxay la tahay haddii shaqo abuur dhalinyarta loo sameeyo khamaar cidigan lahayd ma jirto. haddaba diinteena suuban maxay ka qabtaa waa kan Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo si adag uga hadlay arintaani. waa khamaar iska cad waa. waa khamaar iska cad sababtu waxa weeye ciyaaraha wixii ku saabsan wixii lagu kala qaato diinteenu khamaar bay u taqaanaa ilaa 3 mooye. waa mid labaade khamaarka siday culimadu ku qeexaan waa tan oo kale waaye. wax aan la garanaynin wuxuu noqon doono muqaalabaad in lagu sameeyo rihaan. laba mid baad noqon inaad wax wada hesho iyo inaad wada weydo. wixii baabkaas oo dhan khamaar baa alqimaar aw almaysir. ciyaar hadduu galana wuxuu la sii dheer yahay waxa wax lagu kala qaadanayo bakhtiyaan nasiibka ah ku nasiibsada baa iyaduna wuxuu yahay wax khariban waa. marka waxay ka dhigantaa oo kale nin muxuu ahaayay walba jirkiisa dhiig gaadhay oo kaadi ku dhaqay waa qashin ku dhaqo qashin ku dar
wax waa ciyaar qashina oo munkaraad iyo mafaasid badan xambaarsan asla ayadiiba haddana lagu bakhtiyaa nasiibsanaya bakhtiyaa nasiibkuna waa khamaar qur-aanka kariimkuna si cad buu khamaarka iyo u xarimay marka ma bannaana wallahu aclam bitcoin baa dhaanta muran baa galgalay laakiin tan muran kuma jiro bannaankay taallaa taas najmi cismaan yuusuf warbaahinta jubbaland